haweenaydan ayaa gacmaheeda ka dhigtay sida qoriga iyadoo calaamad ku samaynaysa. cadowgeedii markay arkeen waxay u maleeyeen inay waalatay, laakiin ilbidhiqsiyo yar kadib dhammaantood waa la toogtay. haweenaydu way ogaatay inay guulaysatay sababtoo ah kooxda sniberskeeda ayaa buurta dhinaceeda kale ka sugayay calaamadeeda. markaas kadib haweenaydu waxay u sheegtay ninka u shaqaynayay sidii basaas ee kooxda cadowga ka tirsanaa inuu lacagtii oo dhan u wareejiyo akoonkeeda. laakiin markay haweenaydu mashquushay, ninkii si dhaqso ah ayuu qalabkii wareejinta u beddelay isagoo akoonkiisa u xiran. markii wareejinta lacagtu dhammaatay, haweenaydii waxay isku dayday inay ninka disho sababtoo ah wuxuu ogaa sir badan. ninkii waa la toogtay wuxuuna ku dhacay badda, laakiin ninku wuxuu hore u ogaa in maanta la khiyaamayn doono. sidaas darteed wuxuu xirnaa jaakad xabaddu karin, wuxuuna si ula kac ah u hagay xabaddii si ay calooshiisa uga dhacdo. wuxuu xitaa diyaariyey mayd been ah oo lagu khaldo. markii haweenaydii maydka aragtay, waxay u malaysay in wax walba ay u socdaan sidii ay qorshaysay. laakiin si lama filaan ah, kombiyuutarkeeda ayaa soo saaray fariin digniin ah. akoonkeedii wuxuu noqday eber. cadhadii ayaa ka buuxday, waxayna dhowr xabadood ku riday badda. ninkii oo si mucjiso ah u badbaaday wuxuu u baxsaday dhakhtar qaliin bilicsan ah si uu wejigiisa u beddelo. qaliinkii kadib wuxuu noqday qof gebi ahaanba cusub. af Soomaaliya.